السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجكنا وكدوين برنامجyadii hore. Barnaamijkan wuxuu ka hadlayaa sunta lagu aasay badaha Soomaaliyeed iyo laamiyada hoostooda. Ku soo dhaw kanaalka, subscribe nasar, siina share gare. Suntan aan ku sheegay waxa weeye qashin ka soo hara nuclear-ka, yani hubka wax gumaada iyo daawooyinka kooda lagu guuleystay iyo kooda aan lagu guuleysanba. Haddaba qashinkan waxa keenay wadanka maafiyada Talyaaniga iyo dawlado fara badan oo horeeyo Talyaanigu si loogu aaso wadanka Soomaaliyeed ee bilaa dawladda. Haddaba qashinkan waxa la aasay waqtigii Cali Mahdi uu talinayay, isagana heshiis la galay in lagu aaso wadanka sunta haraadiga sababtoo ah qarash la siiyay. maskaxda waxa ku soo noqonaysa waxay isaga celin waayeen wadankooda ay qashinka ay ku celin waayeen. lacag ayaa la siiyay sida sababkeeda wadanka wax kasta oo lacaga way siisanayaan. haddaba qashinkan marka lagu aasay wadamada horumaray ama dhaqaalaha iyo awoodda leh, halkii tan waxa lagu aasaa $250 qarash dhan, halka Soomaaliya lagu aasay qarash dhan $2 iyo badh, bal isku eeg qarashku intuu leeyahay. waliba ka sii daranta marka wadamada kale lagu aasayo, marka hore meel fog ayaa lagu aasaa, mar labaadka sibir ayaa la mariyaa, mar saddexaadkana naxaas ayaa la mariyaa oo dusha lagaga malaasaa. haddii uu dilaacana raadaarka gudhaw ama meesha u dhow ayuu fariin u diraya oo uu leeyahay uu dilaacay soo gaadha. laakiin Soomaaliya waxa sugama jiraan, badaha ayaa caadi loogu tuurayay iyo laamiyada hoostooda. rag kalluumaysato ah oo Soomaaliya ayaa arkay taangiyo caadiya oo dhex yaala badda iyo waliba qooriga badda. taasina waxay tilmaamaysaa dayaca weyn iyo sida aan loo danin in xitaa la adkeeyo. haba lagu aasay in baasha laga adkeeyo meenay wax dhan ahayn. sidoo kale waxaa la arkay kalluun fara badan iyo xayawaan fara badan oo ku dhex dhintay badda iyo meesha ay taalay suntu sabab la xiriirta qashinka haraadiga oo meesha yaalay. waxaa la sheegaa sunta lagu aasay Soomaaliya iyo sunta lagu aasay qaaradaha kale oo dhan inay isleeg yihiin. haddaba meelaha ugu badan lagu aasay qashinka waxaa ka mid ah Baraawe, Warshiikh, Banaadir iyo Muqdisho. wadamadii ku aasay sunta wadanka Soomaaliyeed ma qaataan subaga iyo kalluunka wadanka ka soo baxa sababtoo way og yihiin waxay meesha ku sameeyeen. haddaba Talyaaniga ayaa xukuumadii hore mid ka mid ah la galay heshiis sunta ugu aaso wadanka, waxaanu dhisay laami xitaa aan buundooyinka kor looga qaadin oo biyuhu dul maraan. sidoo kale waxa uu dhisay cusbitaal. waxaa la sheegay cusbitaalkii inuu isla markiiba burburay sabab la xiriirta in aan la dhigin qalab u qalma iyo xitaa dad u qalma. waxaana la sheegaa laamiga sababta u dhisay inay ahayd inuu sunta xagga hoose ugu aaso. laamiguna waa ka isku xidha Garowe iyo Boosaaso. nin qoraaya ayaa inta labada magaalo u dhaxaysa ku maray safar. waxa uu sheegaa in gabadh xanuunsanaysay 3 casho meeshii la marin kari waayay sabab la xiriirta laamiga oo aan buundada kor looga qaadin. mar uu nin Talyaaniya siinay TV-da ugu weyn Talyaaniga waraysi ayaa waxa uu yiri Soomaalidu lacag wax kasta way u dhaafsanayaan xitaa naftooda. wariye Talyaaniya ayaa timi wadanka Soomaaliyeed si ay wax uga ogaato sunta lagu aasay, idii kamaramaankeediiba waa la khaarajiyay. sidoo kale rag badan oo qoraayo Soomaaliyeed ayaa iyagana la xirxiray. laakiin maaha inaanu ka baqno dil iyo waxaas. si aynu dalkeena u soo ceshan lahayn suntana looga nadiifin lahaa waa in falagooda la qabtaa. waa inaanu qaadnaa heshiis Soomaaliyeed ay ka mid ahaayeen dalkayga waxaan u shubayaa dhiigga iyo dhuuxaba. barnaamijkan waxaan u talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkooda u tuuleysa. wassalaamu calaykum.